halkan umaydan imanina awalgiin joogtaan waxa u timaadeen ashyaada tani waa waxyaabo la idinku itixaamayo lilibtilaa waa la idinku itixaamaya laakiin halkani maaha meeshii aad joogayseen wallahu cindahu xusnul maab ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noqosho fiicani xaggiisa jirta kow qofku marka koobaad dishayrskan waxaynu xadayn karnaa inaynu aakhiro fahamno inaynu garanno halkan muddo yar inaad joogayso sida awgeed haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso waad isdhibtay una you will die waad ka tegaysaa adunbaa ismashquuliyeye waad ka tegaysaa sida awgeed waa inaad ku tala gashaa waxaan maxaa aakhiro kaa raacaya maxaad nolosha kaga qaban karaysaa maxaad bedeli karaysaa ururintu maaha maqsad inaad ururiso agtaada taallo yani qof baad arkaysaa subaxii ka lahay oo ilaa habeenkii shaqaynayey oo habeen iyo subaxba saa u wada oo inta xoolaa le ah oo inuu ururiyo unu nool waxaan u garanin hantidu maxay qiimo leedahay markaa yani muxuu ku falayaa qofku walidaalika baa ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahay qul aunabbi'ukum bikhayrin min dhalikum liladiina taqaw cinda rabbihim war ma idin sheegaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wax tan idinka khayr badan kuwa ilaahay ka cabsada waa haddaad jannaad iyo beere iyo aswaaj mutahara iyo waxaan haddaad rabto meesha aan laga dhimanayn bay jirtaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala janno ayay aakhiro jirtaa idanka koowaad ee waxaan lagu xadayn karaa waa inaynu qiimatu alxayaa garanaa xayaatu dunyaa iyo xaqiiqadeeda waa inaynu fahamnaa ka labaad waa inaynu garannaa aakhiro saynu u guulaysan lahayn qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaystaahi ilaahay siduu u raalli gelin lahayo jannada intan leeg siduu u heli lahaa hadduu your goals dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badan oo ku mashquuliso uun nin nimanka wax haysta soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku ihi odaygan maalintaan imaadaba waa cadhaysan yahay maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahy kambanigiisa wixii ka lumay ee problems jira subaxii lagula soo kala habeer subaxii markuu xafiiska yimaado report baa la siiyaa meel heblaaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhuunteen kuwa waxaasa ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxii markuu soo galo saaka 400 kun baynu faa'iidnay cidi kuma tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaa subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadhoon ka qaadayso iyo mushkilad jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuuna yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك مقياس كسوين كالنوضة ننكا نفتي سكر يا بابا الليلي عن الهوى يعني ضبط النفس نفط وينت كنتروشا معنى يدوى محي مثل أمثلة بسيطة عنا هداد ودك ور شوشين ويدو ومركي علوشو ديركتات لا بتايسر اسبانو باهني سياد انتي ادعوني شرتين كبدان هادو عنتو binaadamku awal in buu cuni jiray intaasaa ku fillayd waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fakaro waxa la yidhaha appetizers baa laga horraysiiyaa marka birima intaad cunada weyn cunin appetizers cun shahiyada kuu sii furtaa si aad u hunguri weynaato markaad dibirtaaba haddana la leeyahay may hadda waxaad u baahantahay digestionka inaad dedejiso wax daaca kaa keeno hore oo maxaad marka hore isu dabirinaysa maad markaagii hore macnaheed waxa weeyaan shahwatul batni baad inaad wax cuntaabaad qasti ka dhigtay iyadaad comfortable iyadaad moodo wax lagu raaxaysto sida awgeed baa waxay noqotay in marna loo raadiyo wax ku liqsiiya marna loo raadiyo wax maxay kaa dejiya hadhowna lagu yidhaahdo waxaad u baahantay si aad u caafimaaddo inaad orodo oo boodboodo oo intanusa marka inaad wax cuntaa haddaad controli weydo waxay keentay noloshaadoo dhan inay dhib ku noqoto
dad control weydo saadaradeed nafta bini aadamka ay waxana waa wasaa'il ay noogu talagalay inay nolosha ku fidoysano walidaalka mar haday nooca yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu controli karno nafta inaad adigu hanato waad controli karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto saawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy war aakhire kuwa liibaanay wa ama man khaafa maqaama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى